toban qalad oo rumaysan tahay oo been ah. Ma maqli jirto hebel ama heblaayo ayaa qalad iga aaminsan, ama nolosha markii hore qalad ayaan ka aaminsanaa laakiin hadda ayaan ogaaday. Waad aragtay kolley dad sidaas dhahayo, laakiin waxaa jira 10 qalad oo aad aaminsan tahay oo mala awaal ah, yacni been aan waxba ka jirin ah. Aaminsanaanta aad aaminsan tahayna ay noloshaada u keeni karto dhibaato weyn. Tusaale, markaad jaamacadda dhiganaysid waxaad aaminsan tahay in markaad jaamacadda dhammayso aad nolol fiican galaysid. Laakiin ka waran haddii aan ku dhaho waxaad aaminsan tahay qalad. Ma aragtay wiilal iyo gabdho markay jaamacaddii dhammeeyeen dhahayo shaqo la'aan ay jirto, ama dhahayo jaamacaddaaba ii roonayd, maxay tahay noloshan adeega ah. Sababtana ay tahay nolosha ay aaminsanaayeen oo ay sugayeen oo noqotay nolol ka adag siday ka aaminsanaayeen, oo ah in mas'uuliyad kusoo korayso, lagaa rabo inaad shaqayso, oo waalid intaas kusoo waxbaraya ay rabaan inay arkaan wiilkoodii ama gabadhoodii oo shaqo fiican helay, mushaar fiicanna qaata. Laakiin taas markii la waayo maxaa dhaco? Isku buuq, qaylo, waalidkii oo dhaho aaway waxaa soo baratay, adigii niyad jab iyo waxyaabo kale oo qofka soo wajaho. Annagu daadihi ahaan waxaan rabnaa inaan ka jaahil baxno qaladaadka aan nolosha ka aaminsannahay si aynan u noqonin dameeri dhaan raacday. Haddaba daawade, 10kan qalad oo aad rumaysan tahay waa been aan waxba ka jirin oo aad aaminsan tahay. 1. Guurku waa un dabin. Guurku waxa uu u baahan yahay in waqti iyo shaqo loo huro, taasoo u baahan adkaysi. Markaad guursato ma ahaanaysid sida aad hadda tahay. Waxaa kusoo koraysa mas'uuliyaddaas oo ah mid guri iyo mid caruureed, taas oo kaa dhigaysa mashquul. Waa sida dhalinta maanta joogta ay aaminsan yihiin. taasna waxaa beeninayo aayadda Qur'aanka ah oo Ilaahay yiri: ومن آياته أن جعل لكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إلهي آياته waxaa ka mid ah أن جعل لكم inuu idin yeelay أزواجا xaasas لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة si aad ugu xasishaan dhexdiinana wuxuu ka yeelay kalgacayl iyo naxariis. Markii laakiin dib laga aaminay guurkii, reer galbeedku waxay ka dhaxleen dabargo, waxayna indhaha kala qaadeen xilli ay xaariif fandhaalba kala dhaceen. Marka inta aan lagu dhihin guurso faxa way guursadeen, ku baraarug oo ogaaw in guurku uusan ahayn dhibaato. Labo, caruurtu waxay keenaan irsaaqad yari. Caruurtu waxayna siiyaan jacayl waan ku ildoogsanaa. Waxay kobciyaan bulshada, marna ha aaminin inay jeebkaaga dabargoynayaan. Haddii kale mar aad duqowda ayaa dareemi doontaa faa'iidada ay leeyihiin caruurtu. Caruurtan ay isleedahay waxay ku keenaan irsaaqad yari, waa kuwii bari ku daryeeli lahaa hadduu Ilaahay ku gaarsiiyo oo aad duqowdo. 3. Dadku mar walba waxay rabaan inay wax ka qaataan. Xusuusnaaw markii aad u malaynayso in dadku kuu soo dhawaanayaan, waxaad u egtahay inaad naftaada saarayso meel sare. Qof walba waa geesiga sheekadiisa. Si kale haddii loo dhigo, dadku waxay leeyihiin noloshooda u gaarka ah oo ay ku noolaadaan iyo dhibaatooyinkooda. Tusaale, markaad xil qabato ama aad hesho hanti, kadibna uu ku soo waco saaxiibka aad shalay iskuulka ahaydeen, inaad taleefanka intaad ku damido aad tiraahdo lacaguu rabaa ana aqaano, wuxuu iga soo wacaa ma anaga isku level ah, lacagtan way dhammaan kartaa ogow. Ama waxaaba laga yaabaa inuu lacag kaa rabin oo uu kuu wado fikrad wanaagsan oo kuu horseedi karto horumar, laakiin adoo isdhahayo ama uu lacag ku weydiiyo aad taleefanka intaad ku damido, sidaasna aad ku weydo fikraddii, saaxiibtinimadiinniina ay sidaas ku dhammaato. waana wax laga fiican yahay arrinkaas. 4. Waa inaad had iyo jeer u diyaar garoodid waxa ugu xun. Waqti ha ku lumin inaad noqoto mid aad u niyad jabsan. Noloshu waxaa ka buuxa waqtiyo wanaagsan, waqtiyo xun iyo waxyaabo ka baxsan maamulkeena. Ugu dambeyn, nolosha ayaa sidoo kale ah waxa aad samaysid. Haddii aad rajaynayso wax xun, waxaad bilaabi doontaa u diyaar garoobidda wax xun, laakiin waxaad ogaataa in taasi ay tahay maladaada oo aysan ahayn xaqiiqda nolosha. 5. Dhaqan xumo ayaa reer magaalnima. Waxaa bulshada ku soo badatay oo caadi ka noqday cayda iyo afxumada xilli ay dadku u malaynayaan reer magaalnimo. Qaawanaanta dumarka oo laga keenay reer galbeedka oo aan sal iyo raad ku lahayn dhaqankeena iyo diinteena. Waana wax laga fiican yahay inaad ku daysato dadka kale dhaqankooda adigoo dhahayo waa reer magaalnimo. 6. Aqli xumo waa astaan daciifnimo. Yacni waxaa loola jeedaa markaad aragto qof si qaldan u fahmay shay,
kadib ka aaminay shaygaas fikir khaldan in aad tiraahdo qofkan waa doqon ama waa daciif. Inta aanad sidaas dhihin waa inaad ogaataa in dadka Ilaahay isku fahan ka dhigin, isku dooq ka dhigin, isku midab ka dhigin. Qof walbana waxa uu xor u yahay dooqiisa iyo fahankiisa iyo habu fikirkiisa. Kaliya waxaad leedahay inaad wax uun u sheegto. 7. Jacaylku kaliya waa sheekooyin. Waa run in aysan salka ku hayn noloshaada waxa ku qoran buugaagta jacaylka, laakiin jacaylka dhabta ah waqti iyo dulqaad ayuu qaadanayaa, kadibna waxaad ka heli nolol qurxan. Waa haddii aad hesho qof kaala shaqeeya arrimahaaga. Sidoo kale xusuusnaaw inay jiraan dhammaan noocyada jacaylka kale, sida jacaylka laga heli karo saaxiibtinimada, qoyska iyo noloshaada ruuxiga ah. Xitaa inaad naftaada jeclaato waa wax weyn oo lagama maarmaan ah. 8. Cayda ayaa u sheegaysa sida ay tahay. Waxaad u malayn kartaa inaad camal wanaagsan samaynaysid adigoo caayaya muuqaalka qofka ama dhaqankiisa, laakiin dadka oo aad caysaa waa wax uun adiga kugu soo noqonaya. Tusaale, shalay qof aad caysay hadduu ceeb kugu arko, ma ka sugay inuu ceebtaada asturo. Mar walba oo aad dadka dulmida, abaalmarinta dulmigaas waad helay, ama adduunka ha lagugu abaalmariyo ama aakhiro kay noqotaba. Ogow, afxumadu waxay yaraysaa xiriirka bulshada kugu xeeran, waxayna kaa dhigtaa qof dulaysan. 9. Dadku weligood isma bedelaan. Ma jiro qof si dabiici ah u wanaagsan ama u xun. Waxaan aaminsanahay waxyaabo, waxaas aaminsanahay waxay noqon karaan wax xun ama wax wanaagsan, laakiin waan isbedeli karnaa annaga oo noqon karno shalay sidaan ahayn cagsigeeda. Tusaale, haddaa shalay fiicneed oo aad xumaato maanta, ma tihid sidaad ahayd, ee waxaa tahay sida aad hadda tahay, ama ha wanaagsanaato ama ha xumaato. 10. Qof walba waa dambiile ilaa la caddeeyo inuu dambiile yahay. Marka hore, qof walba waxa uu u qalmaa faa'iidada shakiga. Dadka waxaa lagu eedeeyaa waxyaabo aysan samaynin had iyo jeer. Weligaa ha iloobin in dadka aysan qaybka ogeyn oo ay rumaysan karaan wax aan jirin. Waxaa intaa lagu daray, dunidu weligeed madow iyo caddaan ma aha. Xitaa markii uu qof qaldamo, lama buunbuunin karo ama si xun looguma qaadan karo macnaha guud.